waaqa rasaaskan ee dhagihiinu ay maqlayaan ayaa isagu ahaa mid lagu joojinayay mudaharadayaal aad u xamaasadaysan oo maanta hakiyey socodkii gaadiid baharaad noociisu yahay mid ay si weyn ugu cadaysnaayeen dagaaladii ka dhacay magaalada Buuhoodle waxaana dhalinyartan oo iyagu isugu jira wiilal iyo gabdho ay laamiga u kala gooshayeen kulba daafihiisa halkaas oo dhagaxaan iyo waliba agabyo kale ay ku jajabiyeen halka ay qaarna ku gubeen tayro laamiga dhexdiisa inkastoo booliisku uu rasaaso ku kaleeriyay dhalinyaradii hase ahaatee waxa dareenka dhalinyartu ahaa mid si weyn looga dayanayo kacsanaanta ku aadan dagaalada iyagu kasoo cusboonaaday deegaanka Buuhoodle iyadoo arrintanina ay noqotay mid si weyn ay dadku u naawulayeen maalmahan maadaama ay siyaasad cakaran deegaanadani ka jiraan waxaana dhawaaqa dhalinyarta iyo waliba dadkii iyagu halkaasi ku mudaharaadayay dinahooda ka soo yeerayay erayo ka dhan ah maamulka Somaliland oo ay si weyn ugu tilmaamayeen inuu caburin iyo xadgudub ku yahay dadyoga ku nool deegaanadani عرضك ويسووا بعض كوبا السعودي هي مثل وحى الأركي جناعسي سوق أو استاجي يولبا يضع مهربيه دتكو أي لهايين ومتكستابة سيدك دقا وحدي ما شفت وحق السراء وكسو قال دتكي مدهراتي نقل لغير بعض ترير والبوليس قابتين وحنا مدهرات كاني وكاميرا كعية ديد مدى تديوغاني مرماهن كسو ياريسا مدهرات كانوا نقولي كي لبعيشون بدود كي صدحات هذه النمو يلاهم بالموت ويسكحلتها lagu qabtay magaalada Laascaanood waxa lagu arkay maamulka gobolka iyagu xarunta booliiska ku sugan si weyn ugu diyaar garoobaya qaabka ay ugu hortag lahaayeen mudaharaadada ku soo fool kale magaaladan guud ahaan deegaankan waxa laga dareemayaa dhaqdhaqaaqyo ciidan iyo waliba jawi aad u xoogan iyo dareenka dadka oo aad u kacsan waxaana inta badan dadka aad arkaysaa iyagoo group u fadhiyay Cabdiqani Xasan Faarax Cabdiqani Gabari Sifayshika caalamiga Universal TV magaalada Laascaanood